Salaamu calaykum. Daawadayaasha iyo dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow. Casharkan waa cashar ku saabsan sida ugu fiican ee lagu sixi karo higaada afka Soomaaliga. Casharkan waxaa diyaariyey Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Janaale oo ka mid ah barayaasha afka Soomaaliga ee magaalada Västerås ee waddanka Sweden. Maanta casharkan waxaan uga hadlaynaa sida ugu habboon ee dadku ay ku sixi karayaan marka ay qorayaan higaada afka Soomaaliga. Sababta oo ah waxaan dareemayaa in dad fara badan ay sameeyaan khalad marka ay qorayaan farta Soomaaliga oo dadku badanaa ay isku khaldaan shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban oo weliba ay iloobaan xarfaha laban laabma. Marka maanta waxaan rabaa in halkan aan ku sharxo sida ugu habboon ee dadku ay ku sixi karayaan higaada marka ay wax qorayaan. Xuruufta alifbeetada Soomaaliga waxay u qaybsantaa laba qaybood, kuwaas oo kala ah shaqal iyo shibanayaal. Shibanayaalku waa xuruufta ba, ta, ja, xa iyo kuwo kale. Shaqalkuna waa shan shaqal gaaban ah iyo shan shaqal dheer ah. Shaqal gaabku waxa weeyaan a, e, i, o, u. Shaqal dheerkuna waxa weeyaan a, e, i, o, u. Haddii markaas shibanaha lagu xijisiiyo shaqal, markaasi shibanuhu wuxuu u dhawaaqayaa sida shaqalku uu u dhawaaqayo. Matalan haddii ba sida aad ku aragtid sawirkan a lagu xijisiiyo waa ba, ba e lagu xijisiiyeyna waa be, ba i lagu xijisiiyeyna waa bi, ba o lagu xijisiiyeyna waa bo, bo u lagu xijisiiyeyna waa bu. Marka shaqalku waxa uu noqon karayaa shaqal cod dheer leh sida iyada oo la yidhaahdo a, e, i, o, u oo sida aad maqlaysid shaqal dheer ah. Marka aad maqasho codka dheerna waxaa loo baahan yahay labo shaqal oo isku xiga sida ba, be, bi, bo, bu. Erey kasta oo af Soomaali ah waxa uu leeyahay codad. Codkaasna waxa uu noqon karaa hal cod ama erey dhowr cod leh. Sidoo kalena codku waxa uu noqon karaa cod dheer ama cod gaaban sida aad ku aragtid xarafka koowaad ee casharkan barasho shibane uu raaco shaqal gaaban sida aad ciwaanka ku aragtid. Markaas ereygu wuxuu noqonayaa erey shaqal gaaban ah oo hal cod ah sida tag, bax, er, dol, tog, shil iyo san. Sidoo kale ereyga hadduu leeyahay cod dheer waxa uu noqonayaa ceel, geel, buur, baar, taag, beer, buug. Sidaas oo kale ayuu ereygu u dhawaaqayaa. Marka la qorayo ereyga waxaa loo baahan yahay qofku inuu ogaado in ereygu uu yahay erey cod dheer leh iyo in cod gaaban uu leeyahay. Labada qaybood ee casharkan ku yaallana waxa ay kala yihiin sida aad ku aragto lambar 3 shibane iyo shaqal gaaban oo laba cod ah. Marka aan leeyahay laba cod waxa ay kala yihiin sida aad ku aragto ereygan labo waxa uu ka kooban yahay laba cod. Codka kore waxa weeyaan marka aad lab buu noqonayaa. Codka labaadna waxa uu noqonayaa bo buu noqonayaa. Ereygan ka hooseeya kharash codka koowaad waxa weeyaan khar. Codka labaadna waxa uu noqonayaa rash. ereygan matalan
xiga ee qalin oo isagu laba shaqal oo kala duwan leh codka koowaad waxa uu noqonayaa qal codka labaadna waxa uu noqonayaa lin haddii aan soo qaadano ereygan codka koowaad waxa weeyaan duf codka labaadna waxa uu noqonayaa fan gudubno qaybta afraad ee casharkan oo ah shibano iyo shaqal dheer oo laakiin laba cod ah macnaha laba cod ayuu leeyahay waana shibano iyo shaqal dheer sida ceel buur ceel waa codka koowaad oo dheer buur marka la yidhaahdana waxaa noqonayaa buur waxaa kale oo ka mid ah faynuus codka koowaad waxa uu noqonayaa fay codka labaadna waxa uu noqonayaa nuus marka la isku darana